xogayaha gobolada iyo degmooyinka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Soomaaliland ee Ucid Cabdiqani Ibraahim Salaf ayaa waxa uu ka hadlay falcelin ka dhalatay xus dhawaan lagu qabtay caasimadda Hargeysa kaas oo loo qabtay askar Ingiriis oo halkaasi ku aasan kaas oo ay ka qayb galeen hoggaanka sare ee xisbiga Ucid iyo haldoor kale xogayuhu waxa uu sheegay haba yaraatay wax kaniisada oo ku yaala magaalada Hargeysa inaanay jirin shantii Soomaaliyeed ee loo halgamayay 60kii oo ay ka mid tahay Djibouti jigjiga gaarisa muqdisho hargeysa waa meesha kaliya ee aan kaniisad lahayn dadkeenu iyagoo maanta ka diin yar ka itaal yar ka awood yar ka cilmi yar ka aqoon yar ayaa waxay gaashaanka u daruureen oo ay diideen in hargeysa kaniisad laga dhiso sida magaalooyinka kale aan idin sheegay dhammaantood kaniisada ku wataalo Allahumma salli ala Muhammad maanta waxa Soomaaliland hadiye jeer gambar ugu fadhiya oo la booca ugu kutubaya cadow taariikhda Soomaaliland dafirsan sida ay dawladda Israa'iil u dafirsan tahay taariikhdii dawladnimadii Falastiin ayaa taariikhda Soomaaliland loo dafirsay Soomaaliland waxa laga dhigaa inaanay marnaba Soomaaliya meel loo dhaafin sidii ay loo qarin lahaa taariikhda Soomaaliland iyo Ingiriiska ka dhaxaysay ayaa hadiye jeer ay ku dadaalaan cadowga Soomaaliland tamaanta xasaasiyadda keentay waxa weeye xus kamid ah xusaskii Soomaaliland iyo Ingiriisku taariikhdu iyada isqortay lama qoree ay wada lahaayeen xus kamid ah ayaa ay ka qayb galeen gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Faysal Waraabe iyo maama Dictor Adna Aadan waxa kale oo isaguna meesha ka maqnay inuu joogay dadkii xafladda ka qayb galay kamid ahaa ambassador Baasha Cawil iyo shakhsiyaad kale oo Soomaaliland magac ku leh waxay ahayd meel loogu ducaynayay dadkii halgankii lala galay gobonimo halgankii loo galay gobonimada dadkii ku dhintay ayaa lagu xusaayay inagu haddaan dad muslim ahay dadkeenna xusaynay de gaaladuna hadii wuxuu kooda xusayeen anagu wax noo taala maaha anagu waxaanu xusaynay dadkii halganka u soo dhintay ee xornimada sababtoo u ahaa ama darwiish ha noqoto ama kuwii kala ha noqdaan dhammaan taariikhda Soomaaliland oo dhameystiran cidii gobonimada ka soo qayb qaadatay baan ayaan anagu xusaynay meesha kaniisada kuma taalo Soomaaliland san hore idin sheegay hadii badankeeda leeyahay Soomaalidu waxay tiraa si xun wax u sheeg si roola ka daran waxaynu ogsoonahay cadowga Soomaaliland hadiye jeer inuu Soomaaliland kula jiro dagaal cir iyo dhula baraha bulshada waxa la inoo samaystay fiidiyoyo beena waxa la inoo samaystay warar degdeg oo beena haddaba cadowga Soomaaliland waxaanu ogsoonahay inay leeyihiin amplifier ay ku hadlaan gudaha Soomaaliland jooga laakiin saanagu isma lahayn nin haldoora oo sheeganaya abwaan oo sheeganaya sheekh inuu ka mid noqdo amplifierada oo uu soo qaato sawirka kaniisadda ku taala Booli Mikael Adisawa ee la wareejinayo baraha bulshada ee lagu soo hor sawiray Faysal Cali Waraabe iyo maama Dictor Adna ee la leeyahay kaniisad bay galeen bulshada reer Soomaaliland waxaan u cadeynaynaa cid kaniisad gashay inaanay jirin Faysal Cali Waraabe iyo Dictor Adna waa laba qof oo marka la arko Soomaaliland la xasuusto